salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada manfac t v qodobada wararka caalamka xilligan aan idin hayno waxaa ugu waaweyn qorshaha maraykanka uu hubka dhigista ugu sameynayo xisbullaahi oo golaha wasiirada lubnaan ay ansixiyeen iyo xisbullaahi oo ku gacan seertay iyo maraykanka oo laba jibaaray yabaha abaalmarineed ee la xidhiidha macluumaadka lagu soo xirayo madaxweynaha venezuela nicolas maduro qodobada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan aynu ku bilownay golaha wasiirada lubnaan ayaa mar kale yeeshay kalfadhi ay kaga hadlayeen hubka dhigista xisbullaahi inkasta oo kooxdaasi horey ay uga soo horjeesatay dalabaadkaasi oo badankiis ka yimid gadaalna ay ka riixayeen dowladda maraykanka ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam ayaa sheegay in wasiiradu ay ansixiyeen qorshahan soo jeedinta maraykanka ee ah in hubka loo ogolaado oo keliya gacanta dowladda wasiirka wasaaradda warfaafinta lubnaan ayaa sheegay inkastoo golaha wasiiradu ay taageereen ujeedooyinka qorshaha maraykanka ee ah in hubka laga dhigo xisbullaahi dhammaadka sanadkan iyo sidoo kale in la joojiyo howlgallada militari ee israel ay ka wado gudaha dalka aysan weli ka hadlin wakhti cayiman oo arrintaasi lagu fulinayo ku-xigeenka madaxa golaha siyaasadeed ee xisbullaahi ayaa ku tilmaamay go-aanka dowladda lubnaan bahdilaad in laisu dhiibayo israel iyo maraykanka waxa uu yidhi ma jirto dowladda ma maamul adduunka ka jira oo la dagaalamaya mucaaradayo kooxaha u dhaqdhaqaaqo nabadda dalka dhexdiisa iyadoo cadowga weli dalka uu ku sugan yahay dhulkiina uu haysto islamarkaana si joogta u beegsanayo lubnaan buu yidhi waxauu intaa ku daray in xisbullaahi ay sii wadi doonto u dagaalanka xaqa ay u leedahay inay iska caabiso israel taasi oo waafaqsan qaraarka qaramada midoobay ee sheegaya xaqa asaasiga ee isdifaaca shakhsiga ama midka kooxeed wadahadalladan ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii wasiiradu ay shaaciyeen in ay qorsheynayaan in hubka lagu koobo 6 ciidan oo rasmi ah ka hor dhammaadka sanadkan kooxda baarlamaanka xisbullaahi ayaa ku eedeysay dowladda in si tartiib ah ay ugu ogolaanayso dalabaadka maraykanka kuwa oo u adeegi doona danaha israel wasiirada xisbullaahi iyo xulafadooda shiicada ee ku jira golaha wasiirada lubnaan ayaa ka baxay kulanka golaha xilligii lagu gorfeynayo soo jeedinta hubka dhigista xisbullaahi sida ay u sheegeen 3 ilo siyaasadeed oo lubnaan wakaaladda wararka ee reuters tallaabadan ay dowladda bayruut ku wajahayso xisbullaahi waxay timid kadib cadaadis uga yimid wakiilka maraykanka tom barak kaasi oo dowladda usoo bandhigay soo jeedino faahfaahsan oo ay ku jiraan jadwal cad oo hubka dhigis ah xilli israel ay weli jebinayso heshiiska xabajoojinta oo ay la gashay lubnaan bishii Noofembar si loo soo afjaro wax ka badan 1 sano oo colaado ah kuwa oo sanadkii hore ku dhammaaday dagaal 2 bilood socday qorshayaasha hubka dhigista ayaa ujeedadoodu tahay in la ballaariyo oo la adkeeyo xabajoojinta iyadoo la doonayo in dowladda ay ka mamnuucdo xisbullaahi hubkoodii iyadoo loo marayo qorshe faahfaahsan oo ay fulinayso ciidanka xoogga dalka lubnaan sidoo kale waxay ku baaqayaan in israel ay joojiso weerarada islamarkaana ay ka baxdo 5 saldhig oo ay weli ku haysato koonfurta lubnaan kadib heshiiska xabajoojinta sida lagu sheegay nuqul ka mid ah ajendaha golaha wasiirada ay heshay wakaaladda wararka ee reuters kadib kulankii khamiista afayaan u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu soo dhoweynayo go-aanka dowladda lubnaan ee ah in ciidanka xoogga dalka lubnaan loo xilsaaro in dhammaan hubka ay geliyaan gacanta dowladda heshiiska xabajoojinta ayaa dhigaya in israel ay si buuxda uga baxdo gudaha lubnaan xisbullaahi dhankoodu waxa ay sheegeen in ay ciidamadoodu dib ugu celinayaan waqooyiga webiga litani oo qiyaastii 30 mitir ama 30 kilomitir ilaa 20 miyl u jira xuduudda israel kuwa halkaasi oo lagu bedelayo ciidamo badan oo ka socda ciidamada lubnaan iyo qaramada midoobay baa lagu yiri qaraarkaasi xisbullaahi ayaa arbacadii sheegtay in ay ula dhaqmi doonto go-aanka dowladda in hubka laga dhigo sida mid aan jirin waxayna ku eedeeyeen golaha wasiirada in ay galeen dambi aad u weyn wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa u sheegay TV-ga dowladda Iiraan arbacadii in tani aysan ahayn markii ugu horeysay ee la isku dayo in hubka laga dhigo kooxda Iiraan ay taageerto ee xisbullaahi isagoo ku daray in go-aanka ugu dambeeya uu yahay mid kooxda kaliya ka go'an isagoo soo xiganaya ilo siyaasadeed wargeyska taageera xisbullaahi al-akhbar ayaa qoray in kooxda iyo xulafadooda ee dhaqdhaqaaqa amal ay dooran karaan in ay kala baxaan afartooda wasiirada dowladda ama ay u qaadaan codka kalsooni kala noqoshada gudaha baarlamaanka taasi oo ay awoodaan garabka shiicada ee haysta 27 ka mid ah 128 xildhibaan ee baarlamaanka lubnaan ka tirsan israel oo si joogto ah u fuliso weeraro dhanka cirka gudaha lubnaan inkastoo heshiiska xabajoojinta Noofembar la gaaray ayaa horey u muujisay inaysan ka waaban doonin weerar militari oo baaxad leh haddii Beirut ay ku guuldareysato in hubka ay ka dhigto kooxdaasi xisbullah
weeraro Israel ay geysatay oo ka dhacay koonfurta Lubnaan Arbacadii ayaa lagu dilay ilaa 2 qofood sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Khamiistii 2 weerar oo kale oo Israel ay fuliyeen waxaa ku geeriyooday 6 qofood. Go'aanka dowladda ayaa mid aan horey loo arag tan iyo dhamaadkii dagaalkii sokeeye ee Lubnaan in ka badan 30 sano ka hor, markaasi oo dhammaan kooxihii hubeysanaa marka laga reebo Xisbullah ay ogolaadeen in hubkoodu ay wareejiyaan. ugu dambeynna Mareykanka waxa uu yaboohay ilaa 50 milyan qofkii la wadaaga macluumaadka la doonaya in lagu soo xiro madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday abaalmarin gaaraysa 50 milyan oo dollarka Mareykanka qofkii keena xog horseedi karta xiritaanka madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, taasi oo qiimo ahaan aad u laba jibaaran marka loo eego abaalmarintii hore ay ahayd 25 milyan oo dollarka Mareykanka oo uu shaaciyay maamulka Trump bishii Janaayo sanadkan 2025. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Nicolas Maduro inuu ka mid yahay shakhsiyaadka daroogada ugu weyn dunida geeya, isla markaana uu wada shaqeyn la leeyahay qowleysato ka ganacsata daroogada, isla markaana cocaine iyo daroogo kale oo halis ah geliya Mareykanka. Fiidiyoo la soo bandhigay ama lagu soo bandhigay baraha bulshada Khamiistii, xeraalyaha guud ee Mareykanka Pam Bondi ayaa sheegtay in lacagta abaalmarinta la kordhiyay ay tahay mid taariikhi ah, iyadoo ku eedeysay Maduro inuu la shaqeynayo kooxaha dambiyada waaweyn ka geysta dalka Venezuela sida kooxda Tren de Aragua iyo sidoo kale Cartel of the Sun iyo kooxda qowleysatada caanka ee Sinaloa ee loo yaqaano Sinaloa ee gudaha dalka Mexico ka asaasan. waxa inta dheer ay sheegtay in waaxda cadaaladda Mareykanka ay horey u qabatay hanti ka badan 700 milyan oo dollarka Mareykanka oo lala xiriirinayo Maduro, kuwa oo ay ku jiraan 2 diyaaradood oo gaar ah, 9 gaari ama gawaari gaaraysa ilaa 9 iyo tan daroogo oo la sheegay in si toos ah loogu raad raacay Maduro. dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa ku tilmaamay hadalka Bondi oo uu kaga jawaabay barta Telegramka inuu yahay mid been ah oo lagu qarinayo fadeexadda Jeffrey Epstein ee ka jirta gudaha Mareykanka. Maduro waxaa lagu soo oogay dacwad daroogo gudaha maxkamad ku taala Mareykanka sanadkii 2020 xilligii madaxweyne Trump. isaga iyo dhowr ka mid ah saraakiisha dhowdhow ayaa lagu eedeeyay dambiye la xiriira ka ganacsiga maandooriyaha. xilligaasi Mareykanka waxa uu bixiyay abaalmarin gaaraysa 15 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo markii dambe uu maamulka Biden sare u qaaday, isla markaana ka dhigay 25 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo la mid ahayd abaalmarintii Mareykanka uu ballan qaaday gaar ahaan ciddii soo qabata Osama bin Laden kadib weeraradii 11 Sebtembar sanadkii 2001. bishii June taliyii hore ee sirdoonka militariga ee Venezuela ayaa qirtay dambiye la xiriira daroogo iyo argagixiso, gaar ahaan waxa uu ka qirtay maxkamad ku taala Mareykanka 1 toddobaad ka hor inta aan maxkamadeyntiisu ay bilaaban. ninkaasi oo lagu magacaabo Hugo Carvajal oo ka tirsanaa dowladdii Hugo Chavez intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2011 ayaa qirtay 4 eedeymo oo ay ku jiraan in uu ka mid yahay kooxaha inta badan ka ganacsata maandooriyaha, isla markaana isku dayaya soo jeedinta ama soo dejinta cocaine-ka iyo dambiye la xiriira hub. dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa ku eedeeyay Carvajal iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Venezuela in ay hogaaminayeen qowleysato daroogo ka ganacsanaysay oo doonaysay in cocaine tiro badan lagu daadiyo Mareykanka. Carvajal waxa uu horey uga tirsanaa dowladda Maduro isagoo ahaa diblomaasi, balse waxa uu ka baxay taageerada Maduro kuna biiray mucaaradka taageersan Mareykanka, waxaana laga soo tarxiilay Spain bishii Luulyo sanadii 2023 kadib olole ka socday Mareykanka muddo ka badan 10 sano. inkasta oo Mareykanka uu bixiyay abaalmarino kala duwan, Maduro weli waa madaxweyne, isagoo mar kale loo doortay xilka madaxtinimada sanadii 2024. inkastoo doorashadaasi ay u arkeen beesha caalamka, Mareykanka, Midowga Yurub iyo dowladaha kale gaar ahaan Latin America in ay ahayd mid been abuur ah oo ku shubasho baahsan halkaasi uu ka geystay. bishii hore maamulka Trump waxa uu la gaaray heshiis lagu sii deynayo 10 muwaadin oo Mareykan ah oo ku xayirnaa xabsiyada Caracas, iyadoo Venezuela dhankeeda
loo ogolaaday in guryahoodu dib ugu laabtaan 10 ruux oo Mareykan markaasi isla markaana u tarxiilay dalka El Salvador xilligii siyaasadda adkayd ee socdaalkii Trump. kadib aqalka cad waxa uu bedelay mowqifkiisa waxaana uu ogolaaday shirkadda shidaalka Mareykanka ee Chevron inay mar kale ka qodo shidaal gudaha Venezuela. arrintaasi horey loo joojiyay sabab la xiriira cunaqabateyn Mareykanka uu saaray dalkaasi Venezuela. inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkiisa xigay intaynu dib ugu kulmeyno fadlan subscribe inoo saar channelkan like garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada u sii share garee dhammaan asxaabta aad markaasi kugu taxan gaar ahaan baraha bulshada wararkan si ay ula socdaan.